إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت waxaan ku sugannahay xarunta kulanka tacsida iyo ducada Quraan akhriska oo ka socda ugaas Cabdullaahi ugaas Faracada ee magaalada Cape Town ee dalka South Africa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan u weydiinaa inuu jidka ka waraabiyo waxa maanta bilaabatay ducadii iyo Quraan akhriskii iyo tacsidii jaalida Soomaaliyeed ee South Africa waxa garbahayga taagan walaalkay ganacsada Cabdiraxmaan iyo walaalkay ganacsada Mahad Cumar Cabdi إلهي هبركيه وحرمت أي تعالى تعسيد أوجاسك جاليد الصومالية سود أفريقيا خاصة جاليد أو كجيريو أوجاس عبد الله أوجاس حاج فرعد بيش كرن لا مرصدة تعسيدون أي تعالى دلك سود أفريقيا قارهان مقالة كيب تاون نجورجا جناعسيد مهد عمر عبدي أو أي منطقة باللعبتي إلا بري أو جمعان إن شاء الله تعالى أي سعد دونتو قرآن آخرسك دعاء أوجاسك مركا إن شاء الله تعالى waxa iga dambeey doona dad badan oo arintan u jooga laakiin insha Allah ta'ala waxaan arintaas rabnaa in ummad jaalida Soomaaliyeed iyo dhamaan madaxda mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan ku nool sida kalsamida iyo nidoonagala ay noola garab taagnaayeen farmaarintii ku geeriyooday Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi dalka Sacuudi Carabiya ilaa maanta waxaan dareemaynaa in dadka Soomaaliyeed yihiin dad walaal ah waxaan dareemaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka baxay tiir weyn oo jaalida Soomaaliyeed ay ayaguna la tiiraanyoodeen sidoo kale walaalahood marka insha Allah ta'ala South Africa oo aan kala harin waxay dhamaan jaalida Soomaaliyeed ee South Africa iyo qaasatan beesha mursade ay ugu mahad celinaysaa gogoshaas qiimaha iyo qadarinta badan leh oo ay noo dhigeen walaalaheen ganacsada Mahad Cumar Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Goobe waxaan leeyahay waa maasantihiin gogoshan waxay noo taalaa guriga ganacsada Mahad Cumar Cabdi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa si toos ah u furmay gogoshii Quraan akhriska ahayd ugaaskeena waxaana maaragtay ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan ugu baaqaynaa oo ugaasku uu ka geeriyooday jaaliyada Soomaaliyeed oo dhan oo ku nool South Africa goboladeeda kala duwan ay isugu imaan doonto gogoshaasi way furan tahay qof kasta Quraan akhriskaas nagala qayb qaadanaysa insha Allah ta'ala way u furan tahay anigoo ku hadlaya afka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool South Africa gaar ahaan qoyska ugaaska marka qof kasta oo Soomaali ah way u furan tahay ugaasku ugaas Soomaaliyeed oo ahaa gacmo furanana ku soo dhaweynayna insha Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un aniga oo ah Mahad Cumar Cabdi degan South Africa waxaan rabaa inaan si xusmad iyo sharaf leh aan uga codsado bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa gaar ahaan Cape Town Western Cape inay nagala soo qayb galaan ducadii iyo Quraan akhriskii oo berrito iyo maantaba ka socda xaafadda aan ka deganahay Cape Town Belfield gogosha oo noo furan tahay waxaan kaloon rabaa inaan dadka ugu bishaareeyo safaaradda iyo community-ga jaaliyada Soomaaliyeed ee degan Johannesburg iyo Pretoria inay ayaguna sidii oo live ah ay uga soo qayb gali doonaan marka gogosha oo noo furan tahay waxay ka furan tahay xaafadda waxaan ka codsanaynaa berrito insha Allah ta'ala subaxdii ilaa duhurkii waxaan akhrin doonaa qatimka Quraanka 184 duhurkii jimcaha waxa ka bilowdana waa ducada guud oo ay Soomaalidu dhan isugu imaanaysay marka gogosha jimcaha markii la dukado iyo xaafadda waaye insha Allah ta'ala waana maasantiin